cabdiraxmaan wasiir dowlaha wasaaradda macdinta iyo shidaalka ee dalka Itoobiya Gwang Tulam ayaa u waramay wargeys la yiraahdo The Reporter oo kamid ah wargeysyada gaarka loo leeyahay ee ka soo baxa dalka Itoobiya. Wargeyskan marka wuxuu ku soo baxaa afafka Amhariga iyo Ingiriiska, waana wargeys aad loo akhris badan yahay. Marka wasiirku waraysigiisa waxa uu ku sheegay in shidaalkii ugu badnaa abid laga helay deegaanka Soomaalida, isagoo sheegay waliba aaga laga helay ku tilmaamay xeel Qur'aan. wuxuuna ku sheegay cabirka shidaalka halkaasi laga helay 1.6 trilyan cubic meter. waa shidaal aad u badan. marka wuxuu sheegay Mr. Gwang Tulam in ay dowladdu hadda ay wado shaqooyin la xidhiidha sidii gaaskaasi dabiiciga ee faraha badan ee laga helay deegaanka Soomaalida looga faa'iideysan lahaa loona suuq geyn lahaa. wuxuuna sheegay shirkad Mareykan laga leeyahay oo lagu magacaabo Greencom inay wasaaraddu ka soo dalbatay in gaaskaasi dabiiciga ee la helay ay soo saarto ayna u qoondeysay $2 bilyan. waxaana u sheegnay ayuu yiri wasiir dowluhu in arintani lagala tashanayo shirkadda New Age ee gaaskani baaritaanka ku heshay. waa gaaska cusub hadda deegaanka Soomaalida laga helay faraha badan, shirkadda New Age oo laga leeyahay dalka Britain. Cabdiraxmaan horey soomay jirin in Itoobiya shidaal hore laga helay oo ay dowladdu shaacisay. Cabdiraxmaan waa jirtay dowladda Itoobiya sanadkii hore 2018 ay ahayd xilliga ay shaacisay in dalka Itoobiya uu markii ugu horeysay si rasmi ah oo uu u helay shidaal. tijaabadan markaas la sameyn doono. marka waxay sheegtay waagaasi ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaana telefishinka afka dowladda ku hadlo kaga dhawaaqay, isagoo sheegay shirkad la yiraahdo Poly GCL oo laga leeyahay dalka Shiinaha in ay ka heshay aaga la yiraahdo Hilala iyo Kaalub 4.7 trilyan cubic oo gaaska dabiiciga ah. tijaabada ugu horeysay lagu soo saaray la sameynayo, waxaana markii ugu horeysay marka ceelashaas laga soo saaray 450 fuusto maalin walba laga soo saarayo muddo 36 bilood ku beegana ay dowladda Shiinaha shirkadda ay leedahay ee la yiraahdo Poly GCL ay sii horumarin doonto ceelal kalena ay baaritaan ku sameynayso ayna ku wado markaas in ugu dambeyntii ceelasha halkaas laga helo dhan ay dalka Itoobiya markaas shidaalka ay ka faa'iideysto. Cabdiraxmaan xilli go'an oo shidaalkaasi la soo saarayo oo cayiman wasiirku ma sheegay. cabdiraxmaan waa uu sheegay, waxaana uu yiri wasiirku mar uu waramay wargeyska The Reporter ilaa 2021 in ay Itoobiya shidaalka dhoofinayso. isagoo waliba intaas ku daray in 736 kilomitir oo tuubooyinkii gaaska qaadi lahaa laga qaadayo halka ceelasha ay ku yaaliin ilaa iyo Djibouti la gaarsiinayo. dowladda Djibouti Itoobiya heshiiskaasi ay saxdeen. marka guud ahaan shidaalkan Itoobiya hadda ay heshay haddii ay sidii looga talagalay u soo saarto oo in dibadaha u iibgeyso, waxa Itoobiya sanadkii ay ka heli doontaa cabdiraxmaan oo dakhli dhan $7 bilyan.